filimka waxa uu ku bilaabanayaa Vincent iyo Sofia oo ah lamaane isqaba ayaa waxay leeyihiin dukaan hilibka lagu iibiyo, laakiin nasiib darro dukaanka si fiican uma socdo, macaamiishana aad ayay u yar tahay. kuwa imaanayana waxay ka xanaaqaan sugitaanka dheer iyo Vincent oo hilibka si la yaab leh ugu ciyaaraya. maalin maalmaha ka mid ah koox dibadbaxayaal ayaa soo weeraray dukaanka iyagoo aad uga soo horjeeda isla markaana ka xanaaqsan in la cuno hilibka xayawaanka, waxayna ku daadiyeen rinji dukaanka ayayna jajabiyeen, waxayna sidoo kale derbiga ugu qoreen aflagaado. Vincent ayaa ka daba orday isaga oo soo qabtay mid ka mid ah kooxdaas, laakiin saaxiibadiis ayaa dib ugu soo noqday oo ka badbaadiyey. maalintii labaad Vincent iyo Sofia waxay u tageen saaxiibadood Stephanie iyo Mark, waxayna u sheegeen in bangiga uu ka diiday inuu siiyo deyn si ay dib ugu hagaajiyaan dukaanka, taasna waxay ka dhigan tahay inuu burbur ku dhow yahay ganacsigooda. intay wada cashaynayeen Mark isna waxa uu ku faanayay lacagtiisa, waxa uuna Vincent guddoonsiiyey hadiyad bastoolad ah si uu dukaankiisa uga difaaco kooxaha soo weeraray. Vincent isna waa uu iska diiday waayo ogolaasho uma haysto inuu hub qaato, laakiin Mark ayaa ku adkeeyey xitaa bastooladii ayuu hortiisa ku tijaabiyey isaga oo rasaas ku riday barkada lagu dabaasho. markii ay guriga kusoo laabanayeen Sofia waxay Vincent u sheegtay inay rabto furiin, waxayna u sheegtay in guurkooda uu noqday mid caajis ah, waxayna ku dhahday waxaan u baahanahay nin geesi ah. si lama filaan ah ayuu muraayada gaariga uga arkay mid ka mid ah raggii soo weeraray dukaankiisa isagoo baaskiil wata. Vincent baabuurka ayuu gadaal u celiyey si uu ninkan usoo qabto, laakiin si aan ku talagal ahayn ayuu gaariga ugu dhuftay uuna dilay. aad ayuu u argagaxay, wuxuuna damcay islamarkiiba inuu booliiska waco uuna u sheego inuu shil galay, laakiin Sofia ayaa xasuusisay inuu cabsan yahay khamri, taas oo ah dembi weyn oo sababi karta in xabsi daa'in lagu xukumo. islamarkiiba waxay Sofia soo xasuusatay filim ay horey u daawatay kaas oo ahaa dilaa taxane ah. dilaagana waxa uu jarjarayay hilibka dadka uu dilo, waxa uuna ku tuuriyey qashinka, waxayna ninkeeda ku dhiirigelisay inuu sameeyo sidaasi oo kale. dood dheer kadib ugu dambeyn wuu aqbalay, wuxuuna meydka saaray miiska hilibka lagu jarjaro, wuxuuna bilaabay inuu jarjaro isagoo adeegsanaya midiyo. intii uu shaqaynayay dhegta meydka ayaa ka gooday, taas oo dhulka ku dhacday. eyga ayaa si degdega u cunay, eyga waxaa aad ula macaanaatay dhegta uu cunay, hilib kale ayuuna dalbaday, taas oo isaga aad uga yaabisay. habeenkaasi isaga oo hilibka jarjaraya ayuu aad u daalay, waxa uuna aaday qolka, hilibkana halkaas ayuu uga tegay. qolka markii uu galay waxa uu arkay Sofia oo daawanaysa filim kale oo cusub oo kuwa dambiyada ah, waxayna u sheegtay inuusan halkan seexan karin waayo waxay ku dhahday waan ka xanaaqsanahay, sidaasi darteed wuxuu ku khasbanaaday inuu seexdo fadhiga. subaxdii waqti dambe ayuu soo toosay, markii uu dukaanka tagayna waxa uu ogaaday inay Sofia iibisay hilibkii bani'aadamka ee uu uga tegay miiska dushiisa, maxaa yeelay waxay mooday inuu yahay hilib doofaar. wuxuuna bilaabay inuu ku qayliyo, balse mid ka mid a macaamiisha ayaa dib ugu soo laabatay iyadoo la yaaban islamarkaana dhehaysa waa hilibkii ugu macaanaa ee aan weligay cuno, waxayna dalbatay hilib kale. Vincent wuxuu isku dayay inuu siiyo hilib kale isagoo ku qancinaya islamarkaana u sheegaya in hilibkaasi uu dhammaaday, laakiin waxay u sheegtay inay rabto oo keliya hilibkii saaki laga iibiyey. kadib markii macaamiisha oo dhan ay saf u soo galeen, Vincent wuxuu u sheegay inuu bedelay shirkadda uu hilibka ka soo qaadan jiray, sidaasi darteedna aanan hilibkaasi mar kale la heli karin. wuxuuna u sheegay macaamiishiisa in hilibkaasi uu ahaa hilib doofaar Iiraani ah, islamarkaana ay adag tahay in mar kale hilibkaas laga keeno waddanka Iiraan. Sofia iyadana waxay rabtaaba inay tijaabiso hilibka bani'aadamka, waxayna ka soo goosatay cad yar iyadoo oo tijaabisay, waxayna dareentay in hilibkan uu yahay mid aad u macaan. kadibna waxay ninkeeda u sheegtay inuusan hilibkan tuurin balse uu isagana tijaabiyo, isagana waa uu ka diiday, laakiin Sofia way ku qancisay, waxayna ku dhahday waxaan iibin karnaa hilibka ninka ee la jarjaray inta ka soo hartay oo dhan si aan u baabi'ino cadaymaha. intaasi kadib macaamiil kale ayaa soo galay dukaanka, isna waxa uu rabay inuu tijaabiyo hilibka, waxaana suuqa u gashay dukaanka in laga heli karo hilib doofaar Iiraani ah oo aad u macaan, kaas oo leh dhadhan ka duwan hilibka kale. waxaana dukaanka soo buux dhaafiyey dadyow aad u fara badan kuwaas oo doonaya inay tijaabiyaan hilibka. intaasi kadib waxay sii wadeen inay iibiyaan hilibka bani'aadamka, waxayna bilaabeen in lacag badan ay ka sameeyaan. xitaa sarkaal booliis ah oo lagu magacaabo Mark ayaa soo galay dukaanka, waxa uuna u sheegay inuu doonayo hilib doofaar oo Iiraani ah. Vincent iyo Sofia aad ayay uga argagaxeen, waxayna ka shakiyeen in sarkaalkan uu u socdo ujeedo kale, laakiin waxa uu u sheegay in dukaankan loogu soo tilmaamay inuu yaalo hilib doofaar oo aad u macaan. markii la gaaray waqtiga cashada, Vincent waxa uu tijaabiyey qaybtii ugu dambeysay ee hilibka ninka uu jarjaray, waxa uuna aad uga helay dhadhankiisa. Sofia ayaa waxay ku dhahday waxaan hayaa fikrad aan ku badbaadin karno dukaankeena, taas oo ah inaan soo dilno dad aad u fara badan islamarkaana hilibkooda ku iibino dukaanka. Vincent waxa uu u qaatay inay kaftamayso, laakiin Sofia waxay ka ahayd dhab, waxayna ku dhahday taasi waa wadada kaliya aan ku badbaadin karno dukaankeena. maalintii xigtay gabadhooda Kelly ayaa waxay qoyskeeda u soo bandhigtay saaxiibkeed Lucas, isagana ma aha dadka hilibka cuna. Vincent iyo Sofia
Sofia ma aysan diidin oo way soo dhaweeyeen. Markii Kelly iyo Lucas ay ka tageen guriga, Vincent waxa uu go'aansaday inuu dilo dad isla markaana uu hilibkooda ku iibiyo dukaanka si uu dukaanka u badbaadiyo. Waxayna aadeen makhaayad, iyaga oo makhaayadda joogana waxay bilaabeen inay kala doortaan macaamiisha. Waxayna rabeen qof weyn oo hilib leh. Cunto kariyaha makhaayadda oo ah qof cayilan ayayna ka xusheen. Markii uu shaqadiisa dhameeyay, Vincent ayaa si qarsoodi ah u daba raacay ilaa uu gurigiisa gaaray, isaga oo midi u diyaarsaday. Waxa uuna ka daba galay guriga, waxa uuna isku dayay inuu midida ku dhaawaco, laakiin marka uu ninka qayliyay, Vincent wuu argagaxay wuuna ka soo cararay. Waxa uuna Sofia u sheegay inuu ninka isdifaacay oo uu midida kula dhagay, sidaasina uu uga soo cararay. Laakiin Sofia way ku fahantay inuu been sheegayo, waxayna ku dhahday waa inaan qorshe kale samayno, iyada oo la wadaagtay fikrado badan ee ka baratay filimaanta dambiyada ay daawato. Maalintii dambe, Sofia iyo Vincent waxay u safreen magaalo kale si ay uga qayb galaan mudaharaad looga soo horjeedo iibinta iyo cunista hilibka xayawaanka. Waxaa loo doodayaa xayawaan, iyagana waxayba halkaasi u tageen inay qof bani aadana soo qashaan si ay hilibkiisa uga iibiyaan dadka kale. Waa laba kala bariday kala warla. Halkaasina nin ayaa aflagaadeeyay Sofia, iyadana aad ayay ula dooday. Kadib nin kale ayaa soo kala dhex galay, waxa uuna kula ballamay inuu la kulmo si ay uga wada hadlaan arrimaha mudaharaadka. Wax yar kadib ayaa waxaa ku soo noqday mid ka mid ah dadkii la murmayay, isaga oo wata laba qof oo kale. Vincent iyo Sofia waxay ogaadeen inaysan saddexdan qof hal mar wajihi karin, waxayna doonayeen inay halkaasi isaga tagaan. Laakiin kooxda ayaa u sheegtay inay qorsheynayaan weerar ay ku qaadayaan warshadda hilibka. Vincent aad ayuu uga helay fikraddaas, waxa uuna ku biiray kooxda, isagoo iska diidaya diidmada xaaskiisa. Isla markiiba waxaa loo qaybiyey maaskaro wejiga lagu qarsado. Markii ay warshadda tageenna, Sofia way argagaxday kadib markay ogaatay inay taqaano ninka warshadda iska leh, kaasoo lagu magacaabo Mark, isla markaana ah mid ka mid ah asxaabtooda. Waxayna go'aansatay inay bannaanka joogto, iyadoo u sheegtay inay waardiye noqon doonto. Vincent waxa uu gudaha la galay saaxiibadii kale, wuxuuna bilaabay inuu burburiyo warshadda. Wuxuu ku shiday dab, xitaa waxa uu ku kaadiyey sawirka Mark si uu u muujiyo xamaasad iyo inuu daacad ka yahay mudaharaadka, balse ujeedadiisa dhabta ah waa inay qashaan mid ka mid ah dadka la socda. Habeenkaasi uma suuro galin inay dilaan mid ka mid ah asxaabtii la socotay. Markii dambe waxay tageen makhaayad, halkaas waxay ka dalbadeen hilib si ay u cunaan, laakiin Vincent wax rabitaana uma haynin inuu cuno hilibkaasi, maadaama uu la qabsaday cunista hilibka bani aadamka. waxa uuna go'aansaday inuusan mar kale dilin qof bani aadan ah si uu dib ugu laabto noloshiisa caadiga ahayd. Laakiin Sofia ayaa bilowday inay canaanato, iyada oo ku dhahday waxaad tahay fulay aan qaadan karin go'aan had iyo jeer marka loo baahan yahay amaba lagu jiro xaaladaha adag. Sofia ayaa waxay bilowday inay la sheekaysato adeegihii makhaayadda, waxayna ogaatay inuu yahay sideeda oo kale qof jecel filimada dambiyada, wuxuuna u soo bandhigay inuu geeyo gurigeeda. Markii ay guriga soo gaareenna, waxa uu bilaabay inuu la haasaawo, wuxuuna isku dayay inuu shumiyo. Laakiin Sofia oo aad u gaajaysneed ayaa waxay ka qaniintay carabkiisa, kadibna waxay ku dhahday kaalay guriga soo gal si aad isaga soo dhaqdo dhiigga. Markii uu musqusha galay isaga oo dhiigga iska dhaqaya, Sofia waxay u tagtay Vincent, waxayna ku dhahday ninkani waxa uu noqon karaa doonfaarka xiga ee Iiraaniga ah, iyadoo ula jeeda ninkan waa inaan qalnaa kadibna aan ka iibinaa hilibkiisa macaamiisha. Waxayna isku dayday inay ku qanciso ninkeeda. Vincent waa uu aqbalay, waxa uuna bilaabay inuu diyaarsado midiyaha. Sofiana way ku faraxday markay aragtay inuu sidaasi samaynayo. sidaasi darteed Sofia waxay bilowday inay u masaajayso ninka si ay u sii mashquuliso, waxayna u tagtay isaga oo qolka fadhiya, waxayna dareensiisay inuu ku jiro xaalad degan. waxayna dib ugu laabatay qolka kale iyadoo ugu baaqday ninkeeda inuu isdiyaariyo oo uu soo weeraro ninka. Vincent waxa uu si dhaqsa uga soo baxay jikada, wuxuuna arkay ninkii oo qaawan, maxaa yeelay waxa uu sugayay Sofia. taasi ayaa sii kordhisay caradiisa, waxa uuna bilaabay inuu madaxa uga dhufto bir meesha taalay ilaa uu ka dhintay. isla waqtigaasi Collie oo ah gabadha ay dhaleen ayaa guriga dib ugu soo laabatay. Vincent waxa uu wejigiisa u dhaqay si dhaqsa ah. Sofia iyadana waxay isku dayday in dharka ninka iyo meydkiisaba ay ku qariso kursiga gadaashiisa. gabadha waxaa ka muuqatay wejigeeda murug, sababtoo ah waxay kala tageen saaxiibkeed Lucas, waxayna go'aansatay in habeenkaasi ay la joogto waalidkeed, waxayna ka codsatay in hilibka dukaanka looga sameeyo casho. waxayna taasi walwal ku abuurtay Vincent iyo Sofia, waxayna isku dayeen inay ku qanciyaan inay Lucas dib ugu laabato oo fursad kala siiso. markii ay Collie ka tagtay, waxay bilaabeen inay nadiifiyaan guriga iyaga oo ka dhaqaya dhiigga ninka, waxayna isla jarjareen meydkiisa. intay wada shaqaynayeenna waxay dareemayeen in xiriirkooda uu dib u soo laabanayay, waxayna baaskiilkii uu ninka watay ku tuureen webiga. galabnimadii dad badan ayaa saf dheer u soo galay dukaanka si ay uga iibsadaan hilibka dadka oo loogu sheegay inuu yahay hilib doonfaar Iiraani ah, waxaana dhammaan hilibka meydka lagu iibiyey dhowr saacadood gudahood. Sofia waxay macaamiisha u sii ballan qaaday inay mar kale keenayaan hilibkan. isla habeenkii
habeenkiina waxay soo qafaasheen cunto kariye kale kaas oo ka shaqaynayay makhaayad u dhow halka uu dukaankooda ku yaalo, waxayna ugu dhex galeen musqusha, halkaas ayayna ku dileen. maalmo badan ayaa lasoo dhaafay, lamaanahanna waxay sii wadeen inay dilaan dadka iyagoo adeegsanaya siyaabo kala duwan. Vincent wixii markaasi ka dambeeyey wuxuu bilaabay inuu ku raaxaysto ugaarsiga dadka, gaar ahaan kuwa cayilan. maalinba maalinta ka dambeysa macaamiishooda way sii badatay, safafka dukaanka loo galayana waxay noqdeen kuwo aad u dhaadheer, xiriirkoodana dib ayuu u soo hagaagay, wuxuuna noqday mid adag, waxaana caadi la noqotay inay dilaan dadka. habeenkii xigay waxay dabagaleen nin ka mid a asxaabtooda kaas oo qaba xanuun dhanka wadnaha ah. waxay dabagaleen ninka isaga oo kaynta maraya, laakiin markii uu ka shakiyey waa uu ka cararay, wuxuuna uga dhuuntay geedaha dhexdooda. Sofia ayaa wacday taleefankiisa, kadibna codka taleefanka ayay maqleen, wuxuuna isku dayay inuu ka baxsado, laakiin wadnaha ayaa istaagay wuuna dhacay. markay u dhowaadeenna waxay ogaadeen inuu cabsi darteed u dhintay. subaxdii xigtay waxay cazumeen asxaabtooda, waxayna siiyeen hilibkii ninkii wadna xanuunka u dhintay. asxaabtoodana sidoo kale aad ayay uga heleen dhadhanka hilibka, laakiin Mark oo cunaya hilibka ayaa waxa uu ka dhex helay bir aad u yar. xaaskiisa oo dhakhtarad ahayd ayaa isla markiiba garatay, waxayna ku dhahday birtan waa mid loo isticmaalo wadnaha, waxaana loo geliyaa qofka wadnaha ka xanuunsanaya. balse Vincent ayaa si degdega uga dafay, isagoo sheegay inay birtani tahay qalab elektaroonig ah oo ay beeralayda u isticmaalaan raadraaca xoolaha. dood dheer ayaa bilaabatay. Mark ayaa xanaaqay, waxa uuna weeraray Vincent, waxayna ku dagaalameen beerta ilaa ay biyaha barkada iskula dhaceen. halkaas Vincent waxa uu Mark ka qaniinay dhegta, waxa uuna ka goostay dhegta oo dhan. intaasi kadib Vincent waxa uu bilaabay inuu daawado dokumentiyo ku saabsan xayawaanka duurjoogta ah, wuxuuna ka baranayay farsamooyinka iyo sida loo ugaarsado xayawaanka kale, isagoo raba inuu farsamooyinkaasi u isticmaalo ugaarsiga dadka. waxa uuna bilaabay inuu mid walba oo xayawaanka ka mid a uga daydo farsamooyinka uu xayawaankaasi isticmaalayo. waxa uu xitaa isku dayay in abeysooyinka iyo masaska waaweyn uu uga daydo siyaabaha ay u ugaarsadaan. maalintii xigtay waxay u baxeen magaalada iyagoo damacsan inay soo ugaarsadaan dad kale. Vincent waxa uu arkay wiil yar oo aad u cayilan, wuxuuna damcay inuu qafaasho, laakiin waxa uu ka baqay meesha oo ahayd meel dad badan ay joogaan. markay isaga soo tageen, Sofia waxay aragtay haweeney madow ah, waxayna ninkeeda ku dhahday kani waa dhadhan nagu cusub ee aan tijaabino. Vincent waxa uu go'aansaday inuu daba ordo haweeneyda, ugu dambeynna waxa uu u geystay dhaawac culus, wuuna dilay. habeenkii mididii uu hilibkeeda ku jarjarayay ayaa ka jabtay, waxa uuna aaday gudaha dukaanka si uu midi cusub u soo qaato, laakiin wuxuu arkay sarkaalka booliiska ah oo albaabka garaacaya. sarkaalka ayaa waxa uu la yaabay in dukaanka uu weli furan yahay maadaama la joogo xilli dambe. sidaasi darteed Vincent ayaa waxa uu u sheegay inuu shaqaynayo saacado dheeraad ah. si lama filaan ah eyga ayaa soo baxay isagoo afka ku wata gacan bani aadam. Vincent waxa uu ku qayliyey eyga. intaasi kadib sarkaalka oo aanan arkin gacanta uu eyga wato ayaa waxa uu soo hadal qaaday dad badan oo magaalada maalmahan lagu waayay. Vincent waxa uu u sheegay xaaskiisa inuu tuurayo hilibka haweeneyda, maxaa yeelay waxa uu dareemay in sarkaalka booliiska ah uu ka shakiyey, wuxuuna go'aansaday inuu joojiyo dilka dadka, laakiin Sofia way ka diiday. iyagoo isku dhacay oo murmaya ayaa waxay maqleen mar kale oo albaabka la soo garaacayo. aad ayay u cabsadeen, laakiin wuxuu noqday Lucas oo ah wiilka ay saaxiibada yihiin gabadhooda, kaas oo u yimid inuu ka dalbado inay heshiisiyaan gabadhooda iyo isaga. Sofia waxay isku dayday inay dejiso, waxayna fariisisay qolka fadhiga, laakiin ninkeeda ayaa waxa uu dareemay inay rabto inay disho, sidaasi darteed si degdeg ah ayuu guriga uga saaray. subaxdii xigtay Vincent waxa uu isku dayay inuu iska daayo hilibka bani aadamka, isla markaana uu iibiyo hilibka caadiga ah, laakiin macaamiishii safka dheer ku jirtay ayaa ka kala dareeray maadaama ay ogaadeen inuusan jirin hilibkii doonfaarka Iiraaniga ah, kaas oo ay ula jeedaan hilibka bani aadamka. laakiin Vincent waxa uu dareemay in shaqada aysan sidaasi ku sii socon karin. ugu dambeynna saaxiibadood oo aad uga shakisanaa ayaa ku wargeliyey booliiska, waxayna u sheegeen in labadan qof ay uga shakisan yihiin inay ka ganacsadaan hilibka bani aadamka. muddo kadib waxaa la sameeyey dukumiinti ku saabsan Sofia iyo Vincent, waxaana la waraystay saaxiibadood Stephanie iyo Mark, kuwaas oo sabab u noqday in la soo qabto lana soo xiro. markii ay sheekaynayeen waxay sheegeen in markii hore ay ka shakiyeen hilibka oo ka duwanaa hilibka xayawaanka, sidoo kalena ay ku dhex arkeen hilibka qalab loo isticmaalo wadnaha. waxayna sharaxeen siday ku ogaadeen in qalabkaasi uusan ahayn mid loo isticmaalo xayawaanada, waxaana ugu dambeyn lagu xukumay labadoodaba xabsi daa'im. markii garsooraha uu weydiiyey haddii ay jiraan wax ay ka qowmamaynayaanna, Sofia waxay kaliya sheegtay inay ka qowmamaynayso inay dishay qof wadnaha ka xanuunsanayay, kaas oo sabab u noqday in laga shakiyo lana soo qabto. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, kuna soo biir channelkeena adigoo subscribe taabanaya.